السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داوداش وان سلام ميل كستي عالمka ay ka joogan kusoo dhawo channelka Hattrick Official caawa waxaan ugu talagalnay challenge yar oo ah su'aalo xujo ah 10 su'aal marka ka kooban yihiin waxa hareerahayga fadhiya ama garabkayga Ramxa iyo Anisa doona challenge-gan ah xujada 10 su'aalood ugu horeyn waxaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo Ramxa iyo Anisa soo dhawaada halkan caawa waxa ka dhici doona waxoogaa yar xaraabaysi iyo xujooyinka aan idin sheegnay waxa rajaynaya idinkuna inaad diyaar u tihiin intaan barnaamijka bilaabin aad idin xasuusiyo channelka Hattrick Official subscribe like share inta commentigana wixii dhiirigelin ama aad noogu reebtaan inaad noogu reebtaan ma jeclaan lahaa idinku idin kala markastana maxaan ku dhawaayay yani hawada noo waxaan ku leeyahay fadhinaa meesha barnaamijka qorxada la soo duubay insha Allah marka channelka la iska sharfo ala soo dhaweey Hattrick Official adiga diyaarad soo diyaarayda bis wad ooysaa dirtay min ooysi ayay ma u tahay inaad ka horeynayso ana kood horeynayso hadda geesiyad baa ka muuqata hadhow blood ooydaa oo duq noqotaa diyaar baan han ku leeyahay okay way hadana ka ooysiin hooyaday Mari Cabdilaahi ma dhalin baan ku leeyahay maxay iga khawsaa waa su'aal ma jawaab meesha ku qortay sida way ugu jirtaa iska amsan waxay waxa dooranaysaa 1 ilaa 10 mid okay number 1 kulli dhinaca nasiibka isku mixmina khayr ma rajaynaya ana waxa ka soo baxay meesha ay eegiso soo ma ogida tan ku nasiib naba hoostiga ducee kulli khayr ma heesho kulli asxaab hoostiga soo ducee okay su'aasha koobaad waxay ku oranaysaa hadii lagu dhaho 100,000 ayaa lagu siinayaa qofka adduunka ugu jeceshay dhirbaax yaa dhirbaaxi lahayd ma dhirbaaxta la no horta su'aashan aad bay adag tahay meeshan lacag baa taala afka kor u qadan lacag jacaylka sida ugu nuuxnuuxsanahay lacag jacaylka salma mirka koobaad naag baan u hayso maaha waxaan dhirbaaxi lahaa ma sheeg kada dhirbaaxi tara خير الله كان ninkaygan dhirbaaxi oo ma ma kablate dadka sirine nin ma leh soo nin ma go'dan ruben di sheegay mid qarsoon ma maleeyay wana ma nin ma lihida hadda waxna aqliga galaya noogu sheegay dhirbaaxi nano hadda ninkayga dhirbaaxo oo $100,000 lacagana qaato ma khasaara ku jira waa su'aale mayo kuma jiro laakiin ninkaasaan diidanahayba waan kaaga gudubnay waaye nin bay leedahay ka leexda nin bay leedahay ada suuqa iska xidhay waa soo eegin xageedan iyo miskiinta nin bay leedahay $100,000 baan arkay maxaan inay saar waxa idagayso anisa waxa aad kala badanaysa ma ogtahay yina ku soo gaadhin way su'aal aan laga qalan maayo horta koodii waxa cuntay Ramxa oo qaadatay oo nin sheegata xataa ay 2 ilaa 10 adigana anisay ما تقول له أد بس أما تدري لما أنت حاطة مكتوب كانت بدي سلامية وأنا جو أنيسة سو قالوا كل نصيب كيو إحنا يسوي قاعدين كل نصيب كيو حاول يرتشابين كل نصيب كيو اسمه مو ما ترني كل نمبر نوع على ما حتى نمبر بان تعبت وقتها نمبر كان تعبنا يا وحويان نمبر 4 كارح قالورت نمبر 4 أنت على ترى ما نمبر قضية وجرة قضية مين اللي صاحبه وكبلا ما قضية يجهرني وياه وكبلا ما الله يرحم الرحيم نمبر 4 waxa ku soo baxay nasiib xumada eebad sitaan ku markii nasiibka la qabin halka damad fartiga taagay jacaylkaaga ayaad wacday lacag ii soo dir ayaad dhahday wuxuu ku ri kuma haya ama uu ku meermeerayba maxaad sameyn lahayd marka kula gudboonaa la salam xasan ma sax door baan u baahnaa markaas oo doonayo day hawl adag bay haysay waxaan ku dhahday adan qof kala garacaan ma helayo marka talo maxaa sameeynaya كل واحد ضرب يده أنا وصلت عربي يقول محل يقوليا أنا هو بلوك بقول الله أصلح ضربني السيارة تنا بلوك محاول صار وياي كرابه يا صاحب شو أصلح ضرب ولا وياه ما هو رم حاضر مسار لهيد مسوي كلا سبين له كي هو الرادنا بلا بركيسة قراء على عاوي كل الطنوب هسه نلاني ما يصير العقبة هسه هاي سكوا يسكتشوا ما دايني أو بس كو قصيصي سبي هذا سجنوك سي قصيصية ماي أنا سجوا هم بيدستي ما هي بيقول سماها صح بالله بابي يقول وياه محو شيء بالله والله ما أمرنا وياه وطريقان كمرة من قصة أنا كوي فرق راعي لها وأنا كمان سارين كويس صح بس كسارة ما هي رمحي كسر نقطة يا رمحي والله أنا متأسف كوي يلا بواد عمتين هذا بدنا نلا كل لحظة صحابته الحمد لله كل لحظة هاتي ترى شعيل بندور سير لقى لحظة كل لحظة بين ويا حبيبتي هي صدح إلى 10 أدينا أوكي نمبر 9 بنمركم نصيبنا إن شاء الله لمبر 9 بيت صحيح نمبر 9 نحط صبح يا رقشة
lambar 9 waxay ku leedahay su'aasha ama xujada ay ku leedahay saaxiibta ayaad bartay ninkaaga hal bil ka bacdi way iskursadeen ayaad maqashay maxaa marka kula gudboonaan lahaa oo sameyn lahayd iyadu waa saaxiibada markaa ma badheeray ma badheeray sameyn lahaa ana ba kala baxay ba soo qabad leedahay in waxaad ku sameeyay maxaad ku sameyn lahayd ama iyadaad ku sameyn lahayd ama kula gudboonaan lahayd su'aalii hore doortay way ka adag tahay marka waxa sameyn lahaa gabadha iyadu waa saaxiibada sax nin lagu kala dhiman maayo صح isagu waa ninkayga هاي saaxiib lagu kala dhiman maayo هاي هذا ما كنا وقاضو horta su'aashan way adag tahay laakiin waxaan sameyn lahaa kulay anu isaga deyn lahaa iyadana deyn lahaa ada meesha ka bixi lahaa ana meesha ka bixi Allah danteeda gabtaa noqotay waa gogoosana anigu labadooda waan ka sameyn lahaa maxaa haystaa la qaaday bay walaalo horta waxa la yiri anisay silic kunool soo dan guursada dhaantay waqti laakiin maxaaban isaga kala sii soconayaan isku caafin horta waxoogaa wax yar waan yar cuni lahaa labadooda waan ka xilka iga beehay muxuu ciidantiina waxaan ku dayn karaa hadda miyaan saas ku dayn miskiinimo kuma qalaya ninkaagina habeen dambe aan ku warsanay hablaha kaaga digay hablaha asxaabtida ka fogow iminka ba naanu ma barayaba ما واسكير بس هو ويسني يريقمو أنا أقول لك شقة سنة والله بلا أنا واركم مرة بعد تصير أيوة أنيسة تاجنت هذانا والله أنت لمبر ود مقلس أنا عاود كوجو علم ما يضحي شيء دارني قلت 1 4 9 4 يا هواد دقدين تابع hortay markii hore waxa ii soo baxay fooro waxa la igu taxal hayo balaqsar balog baan saaray kaas oo caawilaan caaflaan baa u dhacay markii hore googooda ninka waxaan dooranayaa lambar 10 bal waxa ii soo bixi doonaa ila daawada waxaa loo fogaanayaa nasiibka la qadaarin laga saar saaxiibkeen kan yaan bal laga saar mar labaad nasiibka la qadaarin ka qawaj imigana naan baa dhacay waxa nimanka ugu yariin nin hawo oo inuu buuxaan magaalada si wada taagtaagin meelaha laga maraa laba Soomaaliyeed saaxiibars waan ku eegay maxay sabab hadaad been ka sheegtana dadku garanaya jiro comment-iga kugu soo qori doonaa marka inta lagu qashifin runta iska sheego lambar 10 waxay ku dhahaysaa ama ay ku oranaysaa ku sheega waxa lagu oranayaa khayr sheeg da'daada la wadaag oo saxa dadka la wadaag horta marka hore dadayda ku kalsoonaanu qof yarna ma iiso ma fahanteen ma saacayinku waxaan hay 20 jir dawla ma dheeraha lan kama dheerna wad ka weynteen maad runta noo sheegtid kama inoo alaada dadku way garanayaan hooyadina kolay Soomaali baa tiin ugu yara kordhiya 2 sano ugu dara way ka dhigaa saxaabeedin kuna ila wadaaga aniga ku qanacsan laba been baad imika ba sheegtay ugu kordhiya beentu waa dambi hay way ram xadiga dan kugu soo noqon maana igu soo noqday namana way jeceshay disilmi degdeg badi igu soo celinaysaa soo ma aragtid horta kugu dhagarsanaya caawa dhaqso been baad sheegto been kalena kugu qabta rabaa hay maxaa dooranaysaa khayr sheeg marka aan iska nasiibsadaanina hay way number 6 baan isleeyahay markan wax yar oo fiican inuu wax ku dhiibay soo baxay bana marka saaxiibka bal ku diray marka hore adiga ka xaysamidii kaani ma hadaba number 6 jacayl iyo ninba ka dhamaan maysa adigu iyo malaha umada ilaahay inta baad la wada sheekaystaa waan kaashki caawad ku qarqarxin doontaa meesha waxa la guuray number 6 waxay ku dhahaysaa ama ay ku oranaysaa jacaylkaaga been u sheeg hadeen ku dhaad beenteed u sheegi lahayd maxaad u sheegi lahayd been u soo qaban u sheegi lahayd macquul maxaa oran lahayd beenteed u qori lahayd ninka weyn okay kali weyniniga weynada niga mi balad ma ku soo oran lahayd ka tag baa lagu nisa been sheeg okay balad waa been telefoonka waa been may balad waa farsame beenta ka dinan balad waa soo qaban adiga fikrada okay waxaan sameyn lahaa inuu sheegi lahaa no hawl baa soo korodhe bal caawinaan kula hadlaan rabaa ayo markuu yiraahdo kadib cabaar kadib aanu yar maraatay waqtigu yar dheeraade kadib xanaano horta inay cafis ban ka dalbanaya cafis ban ka dalbanaya sababtoo ah anigu qof baan jeclaa muddada dheerna saan runta kugu sheego ma ka fikriya caawin adiga dan ma ku jeclid baan ka leedahay ha meesha ka baxbaan khiyaal ku nool hay baad go'day khiyaalkaas ka taawanay ilaahay baa leedahay debba ku sheega prank weyn oo beenta aad sheegi lahayd ee noo soo waday ma taas ahayd intaas isku oran lahayd sameyn lahaa been ma ahayn kaas xal kale ma jiraba beentaas way yarayd weyn baa lagu sameyn lahayd dama adu beenta sheegi lahayd balaado ka faa'iideysanay xabada xariistan u baadhay aniga waan ka faa'iideysanay beenta u sheegi lahaa waxaan ku oran lahaa maxaan ku raadayay inaan meel sii tiibsado garaac moorna wallahi caawa sakaraad baan ahay dadka hada sidii tag
ma soo galay qosol ma hor bixin ma prank taas kamarada ma waan xijin lahaa faraankooda daadkaas weyn daashatay waaban ka gudbinaada والله intuu soo cararay wixii qaybee haluna been ku sheegay delivery hore barag mu jirin barag la bir hore been bay ku sheegay been bay kuwa ragga waxba qaanaan qalbada sida xil loo raadiyo baragtu waa beentii imka ma wax baragtu waxna waa been hay waay barag naga dhigay kuwa daynay baxabada waad nala gaagaadheen asxaab iska dulqaad caawina la gaadhay labada naga imika hadan ku jiraan runta nii sheegi lahay okay waay adiga wixii hadhay lambar waad garanaysaa ee bal sheego xabad horta markii saddexaad ay soo laabatay nasiibkii labadii nasiib hore ma leeysan wuxuu lahaa ay lahaayeen kulli wada dhageysanaysa man walaynaya mid blog saar bageedo waxaan ku taa ku dhigay caawan ma seexanay meel bay iga jirtay imika saddexaad waxaan dooranayaa lambar 2 qasta waxa dhacaan blog ma leeyahay qofka lag blog ma tan caybina Ingiriis bay noqonaysaa tan ana garanay soo qabtay intii wax fadhiyay iguma dheera kaasune meel waqtiga fadhiya lambar 2 su-aasheedu waxay ku odhanaysaa in wiil taanjira ayaa ku qaba oo khiyaanoola ah furaha hantidiisu aniisay ku dhiibay hoobuu kula xabiibi marka maxaad ku qabsan lahayd maxaad ku sameyn lahayd kullay waxaan ku sameyn lahaa hantidii dhinay furiyada waa la dhiibayo gacanta waana khiyaanooday kullay ma fiican qol lacaga xidhan ha qol lacaga day marka habeenimo waxaan ku wari xoogay dadkiniin u qoosila ma kala jeediyo fadanka laan ka saxiixina mid kale guursan la bas khiyaano ma mid daacad isku jirna lacagtii hantida ku guursan ee ka uu kugu kibriya dhawaad lacag ay ma kibriya ayada qabtay isaga qaba kaas kaana qabadana hantida ma waa ma mushawarka adu kaas ayada qabtay cidba ku aamini meesha uu ku daawanaya xataa kiniinka isku oga cunayaaban barnaamijkeena nimada ka mamnuuc gabdho qulaway ay waay qosasheele idii furiisa ayaga la sharo ay waay waa qoosayaan qasaxada waa wada kaftanay waa wada xaraabaysanay gabigeena waa kaadi saasaan isku cunay xataa ayaan isku qaqawana baashi anagu anagiya ayaan hadana is cuncunay markaas anagu barnaamijka dhamaadkiisa waxoogaa ku soo dhaw ama ku foogan ramxan hadana chance kala siinaya ay ka faa'iideyso ramxay maxaa dooran lahayd intii lambareed maqlays intaad cunteena waa darkiisano laba kaliya aad tahay kun maad ahayni bal waxa dooran lahay sheega aan waxa ku dhalbay rag oo dhammaan ka xiran marta waxaan oran lahaa wad caraf beesheen saasana ugu dhacay duqaani raadin caadi saamooday caawinka boogaasha ka shantay yar mid oo isaga qarax ma jiray suuqa iska xirxirin hay way waday ma jiray waxaan oran lahaa kan nasiibkayga number 7 خير برجيني خير بمشي adigu yaa markan wad dacaysanay saaxiibka saaxiibada oo saacadooda xaashata adigu waxaan ku oray adigu uga tagtay bay naf miliyada ya ana ku dhaw blog saaray ninba ka dhamaan maysa adigu ala ilaahay maxaa raggan maxaa ku daba dhigay waxa la doonayaa in barako wada saaray barnaamijka daawadaan waa saarina waxa waa kaftan weey waxa iska kaftamayna waxa ku dhacaysa su'aash lambar 7 dooratay su'aashaas waxay ku dhacaysaa ninkaaga ayaa guursaday gabar kale adoon ogeyn amba aan war u hayn markaad maqashay ka bacdi maxaa kula gudboonaan lahaa oo sameyn lahayd macnaha wala isku baay gabar kale laakiin gabar ma garanaysid gabadha ay ka soo qaaday sax waxaan sameyn lahaa nasuush noo gambina ma jirtee la iska dhaafi maayo tan daacaw rag baba la igu saliday marada ilaahay way waxa mar laga qaado mar laga fasax garaad guursato saddex jeer waa laga qaadan mara miskiinimada lagu arkay waa laga gudboon marka wallahi laba jeer horan uga hadhay laba jeer baad waxaan uga hadhay nacaaw ma hadhay tu saddexaadna ka malayti saddexaad bana guri agteeda u kareenaan u diyaarnay adaa u dhisi lahaa ana u dhisi lahaa tu saddexaad adiga hada buuqan dareemi ku ka weysan waa barankii rag inuu kugu soo jabin runta iska sheegay na ruba sheegay maxaa sameey laba nin horan daay maxaa sameey wax ku sameey tii saddexaad ban qol banaynay aniguna dhiigi ku cin dhiigi qol bada dhaw wad go'go'da hada wad baadad ugu taasi 10 nin caaw khad ku soo fadhiisanaya lambarkayga xataa inay soo sheegay ayuu waayay haddana waxay taagan tahay Anisa aniga markii afraad ay soo laabatay bal waan TV garan jaabinay insha Allah mar blog saar baa la blog saar saxda ku wareegay loo tirnay ku noqday balti afraad waxaan ayaga nasiibkayga ilaa daawanta insha Allah dudaa ka dhigo talo maxaan ka dhigtaa talo manku caawiya marka manku arkay in dunta kugu taagan nimankaaga saa lagaaga wada ordayada ka roonteeda kii kala ku dhaganay gurigan u kareynay agteeda quraacdan u geynaya taafraadna aniga iga dhig marka diyaar nasiibkayga afraad weeyaan kii afraad asxaabay lambar 8 weeyaan
xiiqdayo 4 iyo 5 iyo 6 saac wuxuu tirinaysaa bismillaah waa lagu naxariisto weyn taas xaaraan silma naxariisa ku sugin lambar 8 muxuu yiri talo مثلا لو كلا أنا قرر يا خسوا يعني وسؤال مرن تو قصل بدن تاي بيمرنا وحون تاي مرنا وقبضر تاي كود مركو جوزها كتوت وقت واحد كل شو أبتان أجناي waxa lagu oranayaa goorta adag mi goorta tilmi goorta baanan horta waxa cusub ma su'aasha macna waa su'aal iska caadiyo oo la wada ogyahay marka in wax fool xumaan ay u qaadina walaalo halkaas minuu yihiin xataa hadaan sheego waxa ku dhahay su'aashini in macnaha wiilka ninka ku qaba waa kugu furay cunto xumo macnaha cuntadaadu u bogi way ka bacdi uu ku furay aniisay waa lagu yimid muxuu ninka kugu furay baa lagu yiri maxaad oranay wasasha guga أصلاً بس وراس حاسة يحد الله يدور هم قدرنا نحن تحمل أوقف فريق عندي بورسين ويزوع جاب قدر ما يمر هذا لا حلو بدي ما يقع على الحصان ما يرتاح حالا نيك أجين حاجة صفرين فاس كوري على فيها هذا ما ضمن الله أحرم مرة هي ومسار بدنا بنورن مسار بعدين عارف فيها كلا قايم مرة مسار كحيتان مسار كوا لسه حد بس ده اللي هو شريم كونه ده لقى سوا صباحي ده قش dadku ku garaabay Soomaa nama yameeni على فيها كلا ما ذي هو يوم حاول يجيب صفرين كتير هو كل واحد يجيب هو يدرس marka waxaan la hooyo ninkii waan soo kala tagnay waan ka imid waykan muxuu igu sabray dooyo ala fayga dhamaad bes marka iska ilaaliyo basashay gubtaayo tamaado burbur xataa dib ku disay waxaan ku uri anisaan ay soo dheeray ay todaya hay su'aashii u dambeysay baan marayaa marka hore ramxay ku bilaabantay sadooda arkiseen ramxana way ku soo dhamaan doontaa ramxay su'aashaas waliba waa lambar 5 baa soo hadhay waxay ku oranaysaa laga xishoon maayo caaw wala nasiibku kaama xishoon su-aasha siramxay waxay ka oranaysaa caawa haddii lagu dhaca caawa lagu khaarajinaya oo lagaa qalayn maayo hadda tii allana hadday timaado laakiin hal fursad baa kuu banaan fursadaasoo ah qof wac hadduu kaa qabto waa badbaadisaa yaa si wici lahayd bal nala magaciisan sheegaya markaa qofka aduu wuxuu doonaa noqdo ma walaashay ma saaxiibkii ma hooyadii ma aabahay wuxuun iska dhig okay lambarka aan markaas saa u waco la qabanay markaaba sax aad ku kalsoonta caaw oo dhanba la soo xeejeeday dhibid ma iga socdo garanaysaa wala laga qalin wixii ka dambeeyo markaas waxaan dhihi lahaa markan hadayba xagga ay aakhira xamaanta u guro ama dunyada halka fursad badaysta waxaan qaraaci lahaa aabaha ma sha Allah aabo iska noolow degdeg baad uga qabanaysaa alla ku daay baba hadda waxaanu taaganahay gunti iyo gunaanadkii barnaamijka anagoo wixii aan idinku talagalnay intaas ku kooban yahay dhammaan su-aalaha aan idinku talagalnay halkaas ayay ku eegyihiin intaasna waxay naga ahayd in yaroo kaftana oo idinka inagu raali gelinay aan anaguna waxoogaa xaraabaysi aan ka dhiganaynay hadda labadiina hablood maxaad daaysiin Hattrick Official samaxaad odhan lahaydeen ood uga sii tegaysiin idinkoo ku jira dhammaadkii barnaamijka okay أنا كنت نقولتي جبدي برنامج كا وحنا Hattrick Official keep going مرولي بهرو سعو أصحاب Hattrick Official مرولي بنسور وهذا قاعد مفرن المحي هذا أنا channel كان هلاس كسوقيشيو subscribe like share comment مع السلامة okay صدرتان نسوي قدرنا ملاينيا أنا قلنا إحنا دلنا دمانة حافظة Hattrick Official كل عاون وين الحجية هنقول كنا نرى نكاك برا صار كنا نهذا هنقول هذا إحنا وقصة عند حمو كنا أركي زمان ملاينيا لكن إن شاء الله واحد لا يوتي صحابته Hattrick Official حنا يتسوي دوادا مرت حاجة مرة خلاص مش نبي حنا welcome أنه إذن له subscribe like share comment إنه نقول رفتان واحد لا ناي باي okay hada lagu soo dhamaaday wixii oranay waan idin dhahnay wixii aad idinku talagalnayna waan idin hor keenay oo aan idin soo jeedinay waxaan halkan kaga sii tageynaa dhamaan asxaabta Hattrick Official meel walba caalamka ama dunida ay ka joogaan waxaan leenahay waxa idin tahay wanaagsan halkaas ayaan idinka sii tageynaa ha ilaawina share ta like ta commentiga waxa halka been ka aragteen intii garanaysaa hablaasba ku soo qabta ka cafiminaa subscribe kana naga ilaawina say dhiirigelin oo noqoto mar walba aan wixii saad uga hesheen aan ogaano on waxyaabo ka fiican aan idin soo gudbino insha Allah kale salaam calaykum waan ku furnay marka hore imika salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantood salaam